soo adigii ma aadan oran waagi markuu uu bariyo waxaad jeceshay gurigan ka qaado ee guriga hooyada aad. wixii aan jeclaaba waxay ahaayeen adiga oo ma jirin shay aan ka jeclaa ama qof aan ka jeclaa oo guriga yaalay xilligaas ma jirin adiga. horay ayaan ku soo qaatay guriga hooyaday oo aad aad tirina waan soo aaday. carabkaygu magacaaga kama caajiso kama aan bixin isaha cudoon ee calaacalka cakuyi madaay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا سومالي محمد ملكستي أدونك عاد كجوكتان halkaan naga daawanaysaa waa Khadar Shariif. hadday tahay markii ugu horeysay fadlan ciwaanada subscribe noo saar aad iyo aad u mahadsantahay. waxaan rabaa xaggan inaan kula wadaago qisas jacayl oo run ahaantii qalbiga bini'aadamka taabanayso. cid kasta oo maanta jacayl soo martayna qalbigeeda taabanayso. ugu horeyn waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka jacaylka la ildaran sideedoo kale, dadka jacaylka u busaylay sideedoo kale, dadka jacaylka raajiciyo sideedoo kale. qisadan markay dhageysanayaan inay taxadar gooni ah lahaadaan, waayo waxaa laga yaabaa cabsi gooni ah iyo dareen gooni ah inay kala kulmaan. waxba yaana warka sii dheeraynin. waxaan rabaa inaan qisadayda la wadaago. waxay wax u dhaceen sidan aad maqlayso. waxaa isguursaday lamaana aad iyo aad isku jecel nolosha bini'aadan inta nolol is jeclaadana jacaylka ugu wanaagsanaa dhex maray. waxay ahaayeen dad waqti fara badan soo qaatay jacaylkooda inta ay isguursanin ka horna jeclaa wada noolaashaha. ugu dambeyn ilaahay wuxuu suurageliyey inay helaan nolol ay ku faraxsan yihiin markaana ay isguursadaan. guurkoodii waxa uu qaatay waqti aad u qurux badan. waxay noqdeen lamaanaha dunida iskugu jecel markaas sida ay iyaga dareemayeen. maxaa dhacay kadib? jacayl fara badan kadib waxaa jiro shaydaan jecel dadka isjecel in uu ka faa'iidaysto una raadiyo fursado ay iskaga hor imaadaan dadkaas lamaanaha ee isjecel. runta shaydaanka marka hore waa caqabada ugu horeyso oo lamaanayaasha iska hor keeno, waana caqabada ugu horeysay ibni aadanka iyo ilaahigiisa iska hor keeno. yani qofka kaliya maanta wadada ka lumin kara ama ku leexin kara waa shaydaan. ugu horeyn ilaahay aan ka magan galno shaydaanka inuu ilaahay naga qabto. fursad ayuu u raadiyay, fursadina waa uu helay. kadib labadooda ayuu isku diray, caqabad ayuu dhex dhigay, buuq joogto ah maalin walba. waxay bilba bil isku sii dhiibto. sanadihii dambe waxaa la gaaray heer la isdigaalo oo la isku gacan qaado. lama kala xishoonin oo halkaasi waxa ka dhacay wax ibni aadan isku xanaaqay dhex mari jiray. ugu dambeyn haweenada kamid ah waxaa xanaaqay ninkii. waxa uu ku yiri dhageyso, waxaan ahayn dad waqti badan iyo jacayl qurux badan soo wada qaatay. diyaar uma ahi intan ka badan in foolxumadeena iyo meesheena ugu qaab ka daran inaan tagno, waayo labada qof ee bini aadanka ah ilaahay wuxuu yiri fayda balaqna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw faariquhunna bima'ruf. marka waxaan rabaa inagoo weli dareenka bini aadanimo naga dhamaanin inaan adiga aan kala faaruqno. iyadoo ani iyo adigaba dareenka bini aadanimo naga dhamaanin ma kala fogaan karnaa. waxa uu ku yiri dhageyso, alaabta aad jeceshahay oo dhan gurigan ka qaado, kadibna guriga hooyada aad. gabadhii tala ayaa ku caddaatay. meel ay wax ka bilowdo ayay weyday, waayo aad iyo aad ayayba u jeclayd isaga. jacaylkiisana waa mid ka sababaya mar walba inay ku maseyrto, ku qayliso, ku booqdo. waxay samaysay garan weyday, way fikirtay, wadnaha ayaa garaacmay, iyadoo dhan way cabsootay. dhaxan aanan dadka qabin ayay dareentay, cabsi fara badan, walwal fara badan. hal fikrad ayaa kusoo dhacday. isla markii waxa ay gashay jikada, waxayna soo samaysay shaah. caraftiisa marka uu fadhiyay fadhiga uu dareemayay isaga. shaahi waxay ku dartay kaniiniga suuxiyaha ama kaniiniga hurdada faraha badan dadka ku rido. kadib shaahi markay u keentay, shaahi ayay wada cabeen. waxayna ku tiri maadaama ay tahay caawadii suuka ee dambeysay wada joogayna inaan wada faraxno oo farxad ku kala tagno ayaan rajaynayaa.
shaahi ayaa la isla cabay. maxaa dhacay kadib? isagii waaga markuu baryay waxa uu arkay asagoo jooga guriga sadohday iyaduna ay ag fadhido. markaasuu ku yiri maxaan xageen joogaa? markaas waxay tiri waxaad joogtaa guriga hooyaday. oo maxaan ka qabanayaa ayuu yiri. markaas waxay ku tiri soo adigii ma aadan oran waaga markuu uu baryo waxaad jeceshay gurigan ka qaado ee guriga hooyada aad. wixii aan jeclaaba waxay ahaayeen adiga, oo ma jirin shay aan ka jeclaa ama qof aan ka jeclaa oo guriga yaalay xilligaas ma jirin adiga. horay ayaan ku soo qaatay guriga hooyaday oo aad tirina waan soo aaday. si aqliyeysan oo maskaxaysan oo degan oo galgacal iyo naxariis ku dheehan tahay ayay ku bandhigatay waxa iyada ay qabtay. run ahaantii wuu ilmeeyey, wuxuuna dareemay inaysan jirin qof iyada oo ka wanaagsan. halkii ayuuna ku raaligeliyey, jacaylkoodina ku laba jibaarmay. haddaba ma jirtaa gabar Soomaaliyeed oo fikradaas samayn lahayd? hadday jirto halkan ku soo mishin kare. tan kale waxaa idinka codsanayaa haddii aad haysaan qisooyin jacayl sidan oo kale inaad ila soo wadaagtaan ciwaankayga Instagramka, pagekayga ama commentiga meeshii aad awoodo inaad igula soo wadaagta insha Allah. intaan qisadeeda kale ku kulmayna waxaan idinkaga tegay asxaabtaan is jecelnahay. nabaadiina. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. carabkaygu magacaaga kama caajiso kama aanbixe isahaa cudoon ee calaa calkaa